abwaan maxamuud cabdullaahi ciise sangub oo aad wada taqaanaan iyo abwaan sugaal cabdulla cumar waa laba abwaan oo soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho. abwaanada waxaan kala sheekaysan doonaa bal sanadkan cusub iyo sanadkii tegay waxyaabihii markaa ay la kulmeen iyo waxyaabihii ay sameeyeen annagoo waqti badan u heli karin haddana inaan soo koobno. waxaan ku sheekaysan doonaa sidoo kaleeto arrimo kaleeto ku aadan waayahooda iyo waqtigooda, sugaan iyo murti iyo maadna barnaamijka waad ka heli doontaan haddii eebba idmo. waxaan rabaa marka inaan kusoo dhaweeyo barnaamijka sanadka cusub abwaan sugaal marka sangub. abwaan sangub kulley sanadka weli baynaan dhadhamin wuxuu dhadhami doonaa alla laakiin ilaah waxaan ka baryaynaa inuu sanad barwaaqo oo nabad iyo khayr wada waa tahay sugaal aye abwaan kulley sanadkoodi waa sanad cusub inkastoo mataqaanaa sanadkiiba hadda laysku haysto kii islaamka iyo kii mataqaana bilihii laysku haysto masna sanadku hadda sanad cusub hadduu yahay ilaahay khayrkiisa hana siiyo amiin amiin. waa tahay waxaan rabaa inaan barnaamijka guda galo marka waxaa tihiin abwaano soomaaliyeed oo ku sugnaa dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada muqdisho sanadkii hore ama sanadkan hadda dabayaaqada ah 2013 abwaan sangub waxaa soo gaartay magaalada muqdisho. waxaad samaysay howlo badan, shaqo badan, waxyaabaha aad ku xasuusan doonto oo haddii lagu yidhahdo maxaad ka xasuusataa lagu oran doono maxaa ka mid ah? kulley heeso badanna waan sameeyey, filin aan hadda weli la soo dayn oo dhegeysu ka socoto dalka oo dhan kaasaa ugu xoog badnaa waxaan sameeyey. filimka asagoo dhammaystiran ha u dhammaystiraya macal sugaantiisii magaciisa ummad wada siyaasiya see lagu dhaqaaya maxaad kugu kalifay inaad marka samayso dalkii aad aragtay? kulley waxaan arkay kii geeli la joogo geeli ka yimid, kii beerta qodayo beertii ka yimid, kii badda ka ugaaranayo ugaartii ka yimid, kii adhiga raacayo ka yimid. waxa aan arkay dadkii oo dhammaan ka wada hadlaya siyaasadda kulle meel haddaad fadhiisato maxaa la yidhi madaxweynuhu muxuu yidhi, muxuu ra-iisul wasaaruhu yidhi, maxaa baarlamaanka yidhi, sidee la yidhi, anagu waan ognahay maxaad naga qarin haddaad raa warwarmahaya waxaad qarin foga waxaa ma foga waxba qarin mayna aamus. marka waxaa igu soo dhacday inaan marka filimkaa kolkii hore waxaa lahaa fikraddiisa tarsan baa wuxuu yidhi dalku aad buu dhibaato u qabaaye riwaayad magaceeda uu ka bilowda maandeer samee. sidaasaan deedna bishiisa un ka wideedii baan halkan ka tegey, xaggan kusoo samey halkan aan imid. waxaan adeegsaday waryar yaro dhalinyaro ah oo yaan soo saaray. adigu aad iyo aad bay iigu fududeeyeen, waa dad dee maskaxda fiyadu wax walba way qabanaysaa. deedna adoo heesahan intaa waan waday geeraraa ku jira iyo samaha geeraraa ku jira mid hadda sawjarkii la bari jiray sida uunka loo dilay xuduudada safnaan jiray intuu suud xidhay yidhi anigaa siyaasio dadka ugu sarreeya. suuban hooyadeenni ama saxaradeenni ama saafideenni ama suubanteedii suud xidhatay tiri dadka ugu sarreeya anigaa siyaasiya. saalax waatayaashii sikrada wax bari jiray, sayradaha anfici jiray, gacanta hoosta degelin jiray, intaasiisa odhan jiray intuu suud xidhay yidhi anigaa siyaasioo dadka ugu sarreeya. sama wada abwaankii kol sahanku baydhaba soo duwayda guri jiray intuu suud xidhay yidhi anigaa siyaasioo dadka ugu sarreeya marka يعني ما إسلام مرك إلا قصة جوابه وحي سياسة حتى ضبان كل كل شيء سياسة واسدة يسدة كم جواب يعني تقول تود حرت السياسي وبطل سود كهاي لابن نيجتين هاي لابن وحبان صوبت هنا تدخل ليش تكلم دكتور بان وكيانا قال جامعة بالوان تصوبح انت سنتك خرمنا خبير بان انت صور تدرس سياسي بطل أول سؤال أيه maxaa adiga ku xasuusanaysaa silada sanadkan sii dhamaanaya 2013 oo silada magaalada wadlad joogtay abwaanna waa tahay waa joogay waxaan ku xasuusanayaa haday tahay maxaa kugu yaabadnaa ma la tirin karo boqol wadin waxa igu yaabadnaa dagaaladii baa igu yaabadnaa muranki baa igu yaabadnaa siyaasadda igu yaabadnaa khilaafyada igu yaabadnaa ولا هشيم ويبقى يبني واحد كستبا يابي هاي واحد كستبا ياب واحد ليسكو هايستو هي واحد ليسكو هايستو هي رمتغاني من اللي هشينا هي مرة دمانش هدي قبل أن كنت ترين دولار إلى حاجة كنت لقاها اللي وليها الكتاجي كرف وكنت ترين دولار لكن هذا سعانو تيجي بس أنا دولو
هو صعد أنت شعبي وكلهم بيلاني هل أقبل حرية كي هدول دلني دق بوح لوكله فلونه هو بيجاي هذا اللي مشغول بعد الربيع أو شبتي دي هندي سوي اللي قد ضوضي بقولي هالكي يعني وقت السوي القلم ما يقوم بيكهتنا يعني هبكي لو قلت لقلي هدام وحوها قاعد إن هل كإن كتوسين كله وهل كان كرن مركي اللي شروفه باش غدو وضح له ضايع أنت هبل ديريو هبل ديريو هبل اسود ديريو الرب وتشيلني قول ما أنت يا دول هذيك كلا هنا ساني هون كان سامرين رقصي هلين كشيك تاعي waxay ku hardama iyo sirtana waa la helayahay hadba waxaanu maqalnaa habkii la isku mari waayay hajuun iyo khilaaf ba haddana hirarku sheegaanay qof waliba qof buu hiifaya hoos ka cunayaay markii mid hor aadaa mid kale dib u hayaamay tashi iyo isfahan bay rabtaa uu la fuliyaay waxba kuma hagaagaan dulmigu heer kastoo yahay lacabkuna hameen iyo dharar weedu hodayaay la isku mahalay karo ajnabi hayb kastoo yahay hogii jabkii beerayaan wad ka huridaanay wax halna idin makrayaan kuwa u rab qooshaanay ayagaba idin hawlayo hoos idin dhigay hurgumada shayuhu watiya halista duuduuban hagardaamadoodii iyo dulmiga nagu hareeraysan ballaynta hawdkii badii lagu hadheeraystay oo haada dunidaysanaba nooga harweedi haaraan ma ficniyo inaan cil hoganaaye haaraan ma ficniyo inaan cil hoganaaye hayaan lagu midoobaa marka la hiirta loo kaceynay habka wada jirkiya guushiba la sariir dhigay waxa loo hameen gudaha haybad qarameede annagoo halkii lagu ballamay hore u si dhaafin hakan mayno Soomaalidu reegada tigi dhulka hooyo iyo dhalashaduna waa har qaali ah markii dunida habar wacasho iyo haybta lagu faano Soomaalida haybsataa u helowday hadalka iyo ka dhigata adduunka adoo marhaya markaad aragtay qof ku midab Soomaaliya khaasun baa walaalkay isku soo boodaan isku ilaa hadalka iyo midabkaba marbaad hel ka dhigataay ma huraan dalkiisa magaca guud waad ku hirataay haybad waxaad ku leedahay walaal aad hurahayn hareer jugsiisa kubaysi daraad yaray bay hilka suuyaani hogooyinkii bay dal qaran u fariistaan himiladu intii caan ka tahay wax hukuumadaale heshiiskii midnimada ka weyn hadafka qaarkiisa hadii la isu wada helayahay lama hingoobeene ilaa aad hal noqotaan shacbigu ma hurdi doonaane baadidii la wada hiibiyana wal helayaay ninkii halu ka maqan tahay markuu haan ka deeyaay umada waxay ku habsadaa wali hortiya in la wada hijiyo bay rabtaa la horboodaay wax kasta markii la holiyay inuu hagaagaane بحبونا دون كلا هارون هلست داوينه أنا وهيجنا وحي حول قبنا هيو رجال يهويني ذلك يحجر الأنتي ده نفطي ده نهر يا حرمه ورا الله باي أنت ذل تشيرن جي وهو مرياي هذي يجي سبب دم جدو تشرياي هم جدو تشمي وحكر وكهر ياي ومدنا حكاس عن ربع إني هذا الشيء أيوة حقول نقول متشر هات كلو فرانة إلى أي متشر هات كلو فرانة إلى أي حاجة تقول منه فرح كهنيتو هم بريو يهجون أمان وحكنيا gabaygaani sangub waa noo gabada Soomaha gabaygaani xisaabta kuma jawaab u dhigay gabayga marka waxa ku jira hadalka iyo midabka marbaad hilka dhigtaa hadalka mid marbaad hilka dhigtaa ummadda Soomaaliyeed oo banaanada wareegaysa boon kelmadaas og qof ku midab eg markaad aragtid ama qof Soomaaliya markaad aragtid kaasoo ma walaalka haybad waxaad ku leedahay walaal aad hurahayn صح hareer joogsigiisa dadnimo hibo ku faatay markii dad wada heshiisa ay meel wada tagaan taasoo baa haybada yaa hanqalocsi meel kale waxba yaani meelaha banaanka la aadayo heshiiska laga raadinayo iyo dadka loogooyinkii bay dan qaran u hor fariistaan dadka qaarkiis dawladda waxa la iska hado diris la iska hado nabadda laga shaqeeyo laakiin waxa ku dhan waa dadka iyo dalkada ku dhan aad baa mahadsantahay sangub baan rabaa abwaankeena abwaan adigu intii aad joogtay riwaayadaas waad ii sheegtay oo wada siyaasiya marka waxaad aad ugu fiicnaad gabayada iyo geerarada iyo qudhaadu ma liidan intaad joogtay wax ma samaysay taxa ah marka laga reebo dhinacaan heesaha aad dhandrisay oo aad ka qurux badan oo runtii anigu baan arkay kullay horta dee ma aamuso haye laakiin abwaan waxay moodaa inuu sugaaliga yar da'yar yahay aad iyo aad dadna waxaan daadii maartay kolba hoos bay kuu dhigay way cajiib bal waxaan tirinayaa gabay ilaahay awoodiisa masha Allah ayaan tirinayaa istimadaada badan ee boqol erey ka maqan yahay mid waliba awoodiyo astaan gaara leeyahay jinniga iyo insiga tirin anigooni caabuda allo waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminayna aadmiga dhammaantii dhararkiiyo itaalkiiyo ereyga iyo hadalkaan midna aan mid u ekayn allo waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa shimbiraha idaylkooda lihii iba laga jaqaayay aanu yeelinaasee baadka aqalka uga dhigay ilmaha ay ku koriyaan allo waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa arbihii maroodiga quraanjada itaalka yar allihii abuuray arwaaxdana ka simado allo waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa
uunkaa wejiga iyo sanka neefta uriye dhagaha maqal ogaarkiiyo indhaheenna daawada inankaa yarayba inankaa madoobay aragtida ku siman tahay alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminayna xanta kuwa ku aarsada beenta kuwa adeegsada alla kama cabsoodaha allaha daajinaayee istariix u feediye jahannaba afweyn iyo itixaan la sugayo alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa udubada lafaha iyo dubka lagu asturay iyo jiirka lagu adkeeyo xubnaha amar dhaqaaqiyo muruqyada adeegiyo miisaanka eebuhu isu wada qiyaasiyo abuurteenna daawada alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa ukumada kelyaha iyo sanka neefta uriyo dhagaa maqal ogaalkiyo sambabada is eegee neefta wada ilaashiyo wadnaha ugu awood badan oogada jirkeennaba bal uurteenna daawada mashiinada unkudaye mid waliba ardaa degay isla wada shaqeeyee xididada adeegsaday alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa nebi kastaa ummaddiisa marka uu ashkootoodee ilaahu maanta naftayda ereygaa ku dhawaaqo udgoonow maxamed kolkii uu ashkatoodee ilaahay u dacwoodee ilaahu ummadayda naarta iiga xoree ereygaa ku dhawaaqo ilaahayna ka yeelo ummadaada soo maro alluhu uu ku yidhaah shanta diin islaam iyo iimaan saadaqahaa iyo intay gaadho salaada addoonkii laga waayay so ayaan dara maaha alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa keligii amiirow keligii aqoonow keli amarka bixiyow keligii ilaahow awooddaada badan baan kugu aaminaynaa arallaahi waasacan dhirta uduga badan iyo buuraha lagu adkeeyey iyo umuurtiisa daawada alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa xidigaha ideelkood dayaxaa iftiimiyo daruuraha irmaaniyo roobka loo asteeyiyo in yarna qabyo ahayn alla waaxid inaad tahay awooddaada badan baan kugu aaminaynaa barnaamijka iyagu waxaan rabaa inaan idiin sheego inuu yahay barnaamij aan abwaanada kula sheekaysan doono gabayo iyo goosgoos iyo murti iyo madadaalo yarna aan kar doonayno sanadka cusub iyo munaasabadiisana aanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaan hambalyo abwaan sugaal baan rabaa inaan su-aal weydiiyo dhowr jeer laysoo weydiiyey maadaama uu barnaamijkan ka qayb galay fanka iyo sugaanta ee tv-ga calson abwaan sugaal waxaa la yidhi dulyaro waxaad noo weydiisaa muxuu tahay sababta uu abwaanada kale dalka way ka baxeen dibadda way tageen sangub allah ka dhigay sugaal muxuu dalka uga bixi laaya muxuu dalka uga tegi waayo oo muxuu dalka ku hayaa baasboor iyo fiisa iyo waa heli karaa iyo tigid iyo waxaas oo waa heli karaa laakiin anigu banaanada dibadaha kuma noolaan wiil kama baxin Soomaaliya 82 baan waxaan aaday banaanka dalal badan baan maray 9 dal oo Yurub iyo dhowr afrikaan oo Masar ay kamid yihiin maxaad u tagtay marka fanti ana waxa uu tiyahaasi oo hawlo kala u tigi adduunka soo aragtid baan u badnay aeroboorada iyo markaan filishoobiyada iyo tago diyaaraddu iga tagtaa baa ku sigin maalin baa saa wuxuu weydiinayo how much saa u laahay waa ugu daray Masar baa tigi markaasan meel waxay ka weyn bay basaay salaam alaykum asalaam markii aadeen baan u carabi ma qan intaasan waxba yisi wada markaas arshadkaas waa meeqa afsoomaali ku ma garooway markii waxa weeye barigaas ilaa jirma geesiisa iyo baarisi kullu waa tigi ma la barka tabta Soomaaliga ku leedahay intadii aan u waay meel baan tignay adigu ma taqaana dawladdu leedahay oo booliisku lahaabaan adigu hawlo u tigi cuntadii baan u waayay wixii baa ka shakiyay waxaan noqday 50 kiilo baan sabab waa cuntadii waxaan ka cuni jiray bahal iyo orange oo ma taqaana dhalooyin waaweyn ku jirtay waxa cuntada dadka Soomaalida ay hilibkooda iyo cuntada dhan baan ma taqaana adigu ma cunin waa cuni waay wixii cuni waay markaas markii dambe ka soo kacay ayadoo waxaa barnaamijka u tahay iidaman baa fasax weydiistay markaas ay yaabeen maxaa dhibaato wararada caanaha hilibgeelkii wixii rabaa gabadhii kabankan wati gabadhii Mrs magaceeda armay hadda ay maqashay hadda magaceeda kabankaas uu jiray kabankii markay ka yaabeen oo kabankaas uu tigay xagga joogto gabadha xaggaas joogay magaceeda sheeko maqlaysa maqlaysa iska dhaaway maxaa magacayga wali joogtay inay soo raacday dabacda wallahi shukala sheekada inaan la joogo sheekada meesha joogo saaxiibadii ku tusi garaabay markaas aan rag imid tusi kartay maxay gabdho
وعمل لي يجي أقول كمان كأنت جودي مركز ما دور عدنا بيبل رفلي هذا شنو كمية مركزان كمان مركزي كيابي مركزي وحوا هست الليلة القادمة ليلة ما هذا الليلة قادية هست جل قادية مركز ليش لازم تجيو أذوبوا وحى إلهي يوصل هذا قبو وحقبوا لي marka dan marka dambe ugu soo kacay ma kuna hadda waxa weey dibadaha marka muujida dadka iyo dhuma banaanka jira caruurteedii hata jooga aad iyo aad caruurta la ma kuna raakar marka ma habeen ma hooyo karo wuxuu joogo hadda waxa la yiri waa lagu yeerayaa bishaad ba ku yeerinaa yiraahdeen walwalka iyo wixii taxmad marka ma aniga banaan ma aad karaan waxa la yaqaataa dagaalkayga anoo iska fiirsada bal iqaataa oo cabaar marka joogtana wax ka sameeyay aniga xamar sidii dagaaladu u dhaceen sideed baa ka dibadii oo sideed صح wali qof la dilay maar inta waa dhaxtay alxamdulillah ilaahu rabbi wala ma hadda iska laha intaasna wala xajib wali qof la dilay qof ka dilay martidaada iyo afkaaga iyo carabkaaga waad ku wacyi gelinaysaa gabayaashida waxa kamid ah hadii aad tu kala toosin karin taada ka adko hadaan tu kala toosin karin taada ka adko bas wi marka waxa weeye waxaan qaban ka hadda gabayga hadda tirada waxa ku jira هيجا واحد كسو منطقة أنا هو أدي هيجا بارو أدي هو القوانين ديار بانانو ديار بان لكن هو وحمل لقى من قبل سومالي وهو سوماليا وأركتدي ذاك الطن سومالي كل جود حبك اللي فيه ماي سوماليا بقول كي بس ديت سجاشن أركتدي ذاك الطن وكاس وحب الإيمان هيا في السنة هيا واحد ما أنت بإنسان بريها وشلاء واحد ما أنت بإنسان بريها وشلاء واحد كله شيء ما تغنى مقدر يعدده وين الدكتور قاعد بروح إما وين الناطق رتاه بروح وعلوه بهاي إن أدلوا بفكروها في ردر واحد الصومالي يسكوه يستمع والله راح تنمو كلمة قبل الماء ولا سمحنا يا راح تنمو قدر كل شيء ما راح تنمو راح لقوا ضبعت نور بعيد ما راح تنمو إن أنا يا دل كبر كمان ملايا والهلية ما كانت الهلية والهلية هذا صباح ما خبطها الحل وين يسكوه يستو وما حل الويل يا سلام ها أنا وصل لحظة أبوان كنا سنقول أنت دبده وكشاق بالكور عذاب دبدي عاد وخبير سنقول أنا لا يقال قبول بدن يدق مريكا كيالك كورا إنه كندا بدل بدن هذا صار كي قبول كله أرض كل شيء اللي بقى تكون يسوكا قرب يلا كانوا حكى برا يسارون هادي وايو كي أنت نتشوفنا إحنا ما نبرنا نسكتشوفنا هادي مريكا كل كان هيقول بعد كاتي حبال لبرنا لبضل اسمه مكنة الله يقول قال لي مسلم وليه أو كل كم ذو إن بتكون كل حكي السنة سوا حصل هذا مكان أفريقيا يا كل حكي بعد أقول هذا أنا ما أنت يقول يا ابن واحد ما أنت اللي روات برمستي واللي يسعى بيني أنا قبل يا أمتك كملها واللي يقول عيني ورث ما أنت يقول يا ابن يتوك تامرك كي كتير marka waa la ii sacbinay markaan dhoofay waad macna barmoosku waa dhoof baad ha dhoof baan helay haye marka anna waan naxsanaa waxaan la abaygu ku caluuliyana wax oranayaan war iska joogna xarunta diro kulkii la ii sacbiyay horta ay ku tahay oo guriga yaa igu daray maraykan kulkaan tagayna waxa ban la baxay la helo magacii waa sunku baskar xawaan iska dhaafay waayo kulkaan nuushitoon ka tagnay waxaana siiyeen bahlay I94 waxa weeye waad noo timid إيه هدان شوي واحد من السيمة كريم كارل يلانو واحد من الدجان كات كميت هاي صوصر تقيد واحد يلان السيم ثلاثة أسبوع سبعة من اليري صح واحد من السيم باصبور اسمه بهلا يلا بان اليري بدنا واحد نقول نقطة وحياة لبنا استب بدنا واحد قبل الأورنج جبتاه الأورنج الهيرو والله ما أصله نيجي وكمان كهال كذا عن مد دولة الدنيا وجوده والرئيسات هي اللي شفتها هم بدأوا ويتر صح هو بدأوا ويتر عن طابع عنها بريبة حراعي وهو عن طريق تعليمتي هو الوود كوادجي تبدأ بيننا هو الوود وادجي تبدأ بيننا في ديو قل لي هنسي هذا الحوم بسكيفيو كان خلين أحضن إيو سينا حلال عليه بيوتوا لرعوه حباب البضيه سير دي هرب دي رهب بيسوان إيه هبيو فيرج الحجليو بيننا لبحوسي إيه سواليه habartii maqtooniyo may kala hagaayaan ubadku ay ka helayaan aniga iyo hooyadu daban kaan nahaynaa sawtan haybadaydi dubahaas ku qaatay aad iyo hindi bari ka yimid iyo indha yar soo habawiyo misyaan la heeriyo
مدو هو عنكين هو أنا وانا نورا صح تبدي حبيبنا ما هو رانا ضيدنا هون دير بكران هبل ولا جوسن نكي باك هاير هبل وبكايو أو رباهراتي هو يا أبا هلينك يا رفاقك هريري قال لك شيفان تبدي حبيبنا هون دير بكران مركا هاتف شيء تقني كني هو يو في دهني والله هو إنك يا عرورته هل كان لقيت تحكي ليه أبي سبار قبا يا هوست يورا هذا الكاس قابسا هذا هاتف كيري كم يرين هذا الكاس كم يرين هذا الكاس كم يرين هذا الكاس ورقد أي هجاجين أي والله هالناشين هانتي بوست اللي جاكين وعاف بعضهم هذا عايجي هوفارت المانتي هولك متهيدي حفيس لقيه الموايو هبل أي كب وحان يهود درق ورنا وهجعسي أفكار لنا يجي عذرنا واحد يقولي هذا الكيش دام نقول تبدأ بيننا هبلا يهرب ودود اللي أنت ويا حبابين سبوا الهجوش لو ذقان ولولا لو ذبري تنهي اللي على السوق سيده هيدي بكسرية ولا على المعودة وأول رقم بين قناة لبكن إنهم بالغرفة تذكين وهلا المعودية تبدأ بيننا هذا نهاد الشيكي هذا نهاد الشيكي تقول هيرين كأمره تقول هيرين كأمره أبو أهستا يعني نقول هالكيسة يعني نقول هالكيسة يعني نقول هالكيسة ديب هذانو حول قرا كوهم اللي يهدي مركا هاد الشيكي هذا سال عقبا هو يدي عقوتنا كجتجي هالكولا ترى لو حبيو وهاف مريكني أفريقيا يسكهوا ردي هل كان نكون والله حساب لا محل ماني هنتدي يو اس اي بعد هريرت هذا النكتة هون يركوا مادما هريرح برمودي هذا كجابسا تبي هاد تفكيري صح تقديري كأمور دب واحد ثاني وغير كيسة هي بروبا هي جيت عليه هدان جيد هريرية هوستي سجيب صدا وبارقب هلويلي ينفع قدوبتي هودو يبحي كاتك لها جاجني هل كان نكون ولا حاجة وحيجي هبين حاجة هود رواق عنا يه هود رواق عيو لهلو يدان يبالس لهلو مش لهلو بال يبحي لهلو ما قاعد مركب مكوجو ها ويوعد دي مارتي أدو يا مارتي لكو ترصدي والله غير هل كان مركرين كان قاعد سلايل أنا كان نقم بقر يا بيض بدن بكتيرته مركي لهلو بانسكها إنك السؤال لهلو تشاكتي هذا الصومالي دي دبدي والله وضع قحي ولا وضع شوقة وهذا علم معها أبوان مدو إن الدلك هذا كترته ورابوان كقارب وتشوشي ورابوان كقالة ورابوان كوقع كرسي اللي يرأي إن ودبد كنا على كي وش عارف قدر مهما هي معك وترنيا هي حمرة هي كل سلوسعون هي كل من الكيل جوكته يلعب حيلها أبديات إيه كده أبديات طلع على الهين ترى جوك له أبديات هذي لو ورهموا ولا البيري أو حنتلو حوله واكون وأنا كاهستا أو حنتلو حوله واكون وأنا كاهستا وما هي أوكي صورت كمان مرة صح من دل كيسة كم مرة صح هو كان دريد يكون وذتري أنا وأنا في صدي والله قصدي كان دوري صدي والله قصدي marka dalkaaga ku doodbadi waa loo rasita marka dalkaaga wax ka fiican oo tigaysa horta ma jirto waliba qofku kulku qof weeyahay oo marka shaqana uu dhaafay wax kale aan ciisanin dadkuna wada shaqo tagaan idinkoo 20 oday la isugu geeyo sar dheer boqol yar ka soo tooso halka aad fadhidaan qabow oo marka aad wada calaysan tahay dadku wada dudaya horta ku dibadda tago odayaashayda waxana la siiyay wax la yiraahdo overdose wax dhacay yaana lagu hudbay markaas ma indhaha cadaynaysa qaarka ilkihi intay u tageen inay sifeeyaan tabar deedna Maxamed Muuse laga saaray war maxaa ku dhacay ilkahayge إلا ولا السوحية الكاغي فينا فالمرايدة تك قولي حلوة بنايين ولا قبحي ولا قبحي وحاب الوقت وحبا لا قبحي الدنيا واحدة قاسي حيا مركا تكتو إن هاد وحي ودنك كوي ماتا هو كان سميش دي أسكري لقادم هدي لقادم عادو رمانيو هدي وحمل لقاد صار سنببك هدي لقادو صار ودنها عظم مكاسيب لمانيا وحي عياد من أوضا قادنوا نوضا صحيح اللي شو ترين كان وضا النبا وحاكوتها الله وحالا وحي الدولة دكتورين هدي يشو وحي اللي وضع هذا اسبار بارتوات أديله وحن نقاري أديله وحن نقاري فرط وح بلا آدمي هو قاري معي إنه الدولة تبتبع معي
dadka kale dad yar baa ka imanaya midka kale ambaashadooradoodii baa fadhiya haddii wax yar la gaadho waa laga gaadhaya waa la dacwoonaya meeshaa maroo muuqaale waa maqashay googa cadale meeshaa maroo muuqaale waabaa noqon horta safaarad noo dacwoynaysa ma lihin dawlad noo dacwoynaysa ma lihin annagu carradii ma garanayno dad waxaanu leenahan isku caadahayn isku afahayn isku diinahayn isku midabhayn waxaan noqonay un adhigii rida madoobi daba ordaysay adhiguna ka carar lahaa imaan noqonay deedna dhibaatooyin fara badan baa dibadda yaala dhibaatooyinkaa fara badan waxaa u yaalaa ma ilaahay baa salo siiyey ilaahay baa salo siiyey ilaahay baa salo siiyey waayo markii hore waxaa la moodi jiray cadaaladdan ay noo sheegaan iyo waxaan ay noo sheegayaan inay dhabtahay baan moodi jiray tu yaraan dhalay ayaan ibaa baaburka dul ciyaarta annagoon cusbahay gamayaan hadday u noqoto adaa soo qaadi xaggina soo qaadi magaalada ma aqaan wadda ma aqaan baabuur ma hayso aan dambe ugu soo dhiibano suunkaan u furto labadaasaan ka tuuray gabadhii ilkahan ka tuuray orod iskoolkaaga tag baan anikaani mareykan waxay iga gureen dabna gabadhii yaryarkii baa yidhi gabadh la dilay baa joogta waa lala cararay 7 cisho ila daydayeen iyagu haya ciise waxba gabadhi meesha may wax u maanayn man sideedad baa lay kaalay maxkamad ku dheero madow oo cirka leeg ayaa buuqayga haya meesha dab yar kaga dhacay midibu ku dhuftay meesha feer buu ku dhuftay iliga wuxuu idaba wadaa baalinta leeg 3 bilood xadhiga wasaan ma dhalin matalaad wogar ya ninsana ninkani hada wala xamiyaan halkaan yaalan hada wala halkaan yaalan deena wixii 3 bilood oo xadhiga iyo 10 sano filka ku jirta waa meel baan ka qaatay toddobaadkayga buuri waana mid gabadh baan maanta ku dhalan gaadhay meesha waxaan idhaahdaa ma ku lug bixi haddii loo yari hadana ma lug baxayo haddii dawladii hadlaysana ma lug baxayo maanta afkayga baan ku lug bixi waxaan ilaahay kugu dhaariyay waxaan kula inaan ka hadin baan intii bi weydiiyay dawladda ku hadlaysa ma waxa ku hadlaya looya ma waxa ku hadlaya ada hadlay ana hadlanaya aadiya wali meesha aan joogno harda Mareykan baa misana lagu tababaraya maxaad uga jeedaa bi aqal fiican iyo kuriyo fiican iyo dad ubax leeyana tusiyay maanta guriga baranbarada iyo jirkiis ku dhaafaan marka waxaan moodayay in la sii tababarayo oo deedna aan Mareykan kadib la degeyn ma wax sidaan u bul Mareykan waxaan weydiiyay haddana maanta baawir wadan lacag wadan af aqoon oo Soomaaliya lagu tuuro seedahan lahayd baan aad bay igu dhabanaan lahayd anna sidii ay maad ogeyn baa iyo balaayada ay doon miyaan ogeyn baan deedna waxaan ku yiri ay waxaan anagu banhin qaxooti ma jabtay baan bayroodkayagi dhakhtarkayagi abwaankayagi hooyooyinkayagi abooyinkayagi dhalinyartayagi ayaa meesha shaqaysaan marka waxaad moodaysaan idinku waxaad timbaan dadka ugu cilmiyar adduunka hal ingiriis ba taqaanaan baa carabi ma taqaanaan soomaali ma taqaanaan afrika ma taqaanaan faransiis ma taqaanaan dhil ma taqaanaan waxaad qabsataan ay american ya ka dhigateen maan wax macna ma baan magciin wax macna u leeyahay ma laha inaan noogu celcelisaan midka kale waxaan ku weeyaan waxaan ku sheegayaa anigu 17 caruura iyo aniga islaamta aan 19 ii fasax inaan ay daraaga ii kadaan ما يبوي وكل كان كعليين دلنا هذا قبصته كل كان هذا يوجد هذا ديت صهو يوم بالمي محانا حصل يا وحول بالواحد يريس من كاس هو مسكح البلد ما عرف يقال قفك عامل بالوحيد بالوحول لحد انك سفر بالوضع دبل الناس وصلنا كانوا عرض انت قاعد معايا انت مكبر بح لكن انت وجهك كدرينا tobankii sano uu iga bedelay igu jiray faylka saddexdina oo iga ma istir marka dadka Soomaalida aad ugu nasiib badnaa bismillaah rame waa afkayaan ku keensaday afkayaan ku keensaday waan loo ogolayn saad xataa marka yaano dhoofku aan dhibaato badan buu leeyahay nin nabigiisa kala waan kaayay maxaa nahaysaa waxaan rabaa inaan soo gaabiyo barnaamijka كوي وحنا لنا هنا ترى داتي إيه قرآن باترى مسؤول داعي من موجان عدنا موجينه مهوران والدنيا بوق اسمها ذو قرتاي متى تكسينه ومتى لقوم عشاء ما أنتي أسوي إيه لمدي لقوم مع سعودي وغيره من ما جاري يومين وذي تشتي اسمه كاسي وذي شركة مرغولة روبي
موقفكي يقولك مرقرة ما ذكر واي لنتي اسمي ذا مسيا مؤيد كي راعي الدوسي ميلي لدي ملتي بعدي متداقي إن عيسى مهرتدي يوردن ودني مصيبة أمري ما عصومالي مريه فردوسية كنا الموضوع وطول هي شيء مجوراك يا مقل كسويالك تاريخ ضوا مركزي بدل الرادة مكتب يدرس مقطية مران الآن ترى نبص يدو كسر مديري وما جيساي مسؤولين نعي كمان تكتيه ما دقونيه هذا ملك أي تبع هذا لقى من جوشة ما هدي أبال كذا من أخذ برتاعه هدي أدر مدن أميه كمان مريمانه متى يكون يشو نوضه ما يعرفه ما كل أدق واحد قبح هذا تلا المستعي هدي مرق تحت تقولن باللون بربحية مقدي يعدد وين البذوك القادة بره واحد إيمان وين البانت قرتها متتكي أسوي الكشيو السنم كذيبة من مغلية من مدرسة تجاهي مرقاتيه رأيت من مقترض إيه ما دش إلا تي لو كلام مقلين ومرقورة مرض الله دوتي يا مالك شري مركي ملتي وبهذي ملايين قبل وكسر من بديه قال له من هذا كرسون يرجع متردد شري هالنوعات ما تأخذ بيجون عليه لما كي وراك حمل ده الغي مريض كوده مسارها ضد قاطع مريه جولستي ما كي يقولوا تودي بحما كم يخليدي قبل ما عم بيخبين إني متستاني هدي أنا من نمو متشني مجا الصومالي جويستوه مرة كبرت جل لبض الميلودة وحلهم الكي على كوا ميلودة كذي هذا يكلم الرسول ده هي لما متنقوله متتكي هالجبي إبراهيم هذا قاسي مقدسة يهرجيسة يهدر مرك جود يجو درارتي من ما يحرم الجوم التانوبي ومدك تلا يسقط بكلمة هذه بوشينا ما يعقوله إن يشجعوا الميلودة كذي كمان معرفته وحرم مهرد دي وقويه أكلم مرمي محبدي كفو ولنيه مغاور بشيء مع الدينك ما هو ران استعلي ودين المدة إسرائيل هذا كلام الرسول لهي لهم متيقوله متتكيه الجبي إبراهيم هذا جالسي لحدك مني برضه بيمري خبوشة بين يمجوك بهالجي مدح بنانان مبدأ جمست وتيم الأول كوده مراتي وتشدني كي نوم الدهياني مدب يوحنا نقله مرنا الرسالي مقدمي معاني يقرأ نوم التلياني واحد نقول مريمان قبل لا يسكون مرياي ما هدوس التجي نقول مريمان قبل لا يسكون مرياي مسوق يمريض نقول تلقى مسافرة ما هدوس التجي وربعين نجم مسافي مرفق ما يقول لما دون هي ترى اسمه دافع ما حد يوحى إنه قفش الإله ما دقة ما راح يمسون بالتمام والعدل مخرس يمجو يهدان مقالة داوين موقف كي يهدي اللومان ماك يكابك قبل نودو وما قتلنا مشرتاي على المرق لكما مرتي ما لا يدقتاي مردادي يقرن دافعه بردادي يقرن دافعه بوت كلوه رأيه مسكحته سن ما هدي كلك أو مش حرد داي مد مرتي واحد أرسلت ما يرقاكد مد كتك لبطوسية تيدا من المرة مقاول لسوم رأيه ما تكرس كده ميسان يحصل بيرتاح لهم السباعي مرتي واحد أرسلت ما يرقاكو متنيه الجميع يهدي وإذا مقشدة مدح يتعود إن ملعب التيراي مسلمون وإي عبشة كعين ملايين مسلم قال السنة إسلام ميران وصحنة ما ترى وحن ما ترى مدة المكسن هي بيقولها تفلين الله يوم مصلحة غير قبل مجانا كاتون ذلك يجمع معاملات إحدى النجوم التانو الله يوم من ما يسعى نقول الجار مارتي مسلم كل أبو كوي كيا كلام ميران ذلك يوم مثلا مار ما يالو ميل وتشيني ما مسكح دين أبو كبح ما جاي شوشك ما أبو كيل مدي أن عسوبي ماما أبو كيل مدي أن عسوبي مدي أن عسوبي وصاحر ياسين قبان ربع لبس سؤال وسدح سؤال وقابن إنا ويديو mar haddii adigoo Mareykanka joogay sanado kooban abwaan Soomaaliyeedna ah intaasoo xariga ay maartay 10 sano sidaas iyo xoogaa maxkamadda iyo lagu geeyay 30 sano ama 40 sano dalkan aad abwaanka u ahayd oo gudaha dalka Soomaaliya joogtay marna ma lagu xira kama ma bixin ya xarigba kama bixin halkaana Mareykanka maya xagga haddii Mareykanka lagu xiray marna kala bixin dalka xarigu ma hor baleeyay wal maxaa iskar wax lagu daba taagay maxay wana miswa hadalkaaga riwaayad baad samaysay filmad samaysay waxaad samaysay dadkii baad baraarujisay dib baa loo noqonayaa baa tiri kay ugu daraa la igu qabsaday dib baa loo noqonay waxyaabo lagu daba taagay intaas Mareykan ma xidhay Soomaaliya bay dacwooyeen waa turjumayeen Soomaaliya bay ka turjumaysay ina kan ima afkaranay ma afkaranayso ma kama bixinba xarig halkan Soomaaliya gudaheeda intaad joogtay dawladii kacaanka dawladii ka horeeyay intaad joogtay dalkan aad shaqaynaysan dawladahana ma ku xireen waligay dawlad Soomaaliyeed wax dambi oo inta gashay lagu xiray abwaanka la soo qabtay madaxweynaha bay sheegayeen wax bay sheegayeen waayo markii aan ku sheego dibka jiray dadkii markaa nabad sugidyada ama baaritaanka ah waxay ahaayeen niman aan aad ugu dhabageynayeen af Soomaaliya جسورة مركا أنت أي فسحان أيها كل كدوين وحوشة أي كادر إيمان مثل ماني وحيري
maadays maadays adduunyada ayaa hees ku jiray wuxuu yidhi maxaad qalaysaa heeska waxaa la odhan jiray hadduu beer ku qaybsamo bar baan adig ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli lahaa kaagana waan la bixila waa booli dhiiguye kaalama bakayleen naftoo laba bahood noqon barkaagaan ku siin lahaa wuxuu yidhi waxaan aad qalaysa waa maxay war maxaan qaybinaya maxaan qalaya wax ma qalaya ya waxaani sugaan buu leeyahay halku dheg buu leeyahay hadaf buu leeyahay aqalkaaga oo joogo wax walba kuu iman adoo iska fadhiya daadan dadkaba ula jeedin ayuu kuu imanaya waayo mid kale wuxuu igu yidhi waxaad tidhi hees baad ku tidhi buu yidhi waxaad ku tidhi buu yidhi hadda wuu iga yar maqan yahay wuxuu yidhi waxaad tidhi haddii dirirka ururkiyo dayaxoon nagaadiya meelo jaleeya daba maray oo goluhu dabay raac ma nagaan dariiqii afidowga muu helin cadceeduna dantoo jiray soo durug mariiqii nin lagagaa dul joogsaday allahayow ducay keen hala dooda qaybteen allahayow duca keen ducay keen hala dooda qaybshee waayo waxay odhanayaan wax walba waxbay la doonayaan naw cilmi felag baan leenahay sarbeeb baynu leenahay araah baynu leenahay halku dheg baynu leenahay mahmaah baynu leenahay wixii oo dhan faal baynu leenahay ayaa lagu diiday hadalka maxaa macaanaya marka ma macaananaya haddii hadal mutaxan aad sheegto saa isu dabamaraan marka eedda waxaa iska lahaa dadanta suuradii wax garanayn oo af soomaaligii u dhabagelayn oo ku faanaya inuu qof soo qabtaa ay tahay guul weyn qofkii qof iyaadaa wuu gafaya wuu soo qaday guul weyn bulshada waxay u fasiranaysaa wax kale hadda riwaayadan aad samaynayso ma kolley fulaaxadiisu ma moogaa la yidhi magaalada in la yidhi riwaayadiisu waa siyaasad maya waa iska beenoo qola aan hadda maanta heshiinayna ayaa si kale gelisay laakiin kolley filimka markaad soo bandhigtaan la ogaan doonaa mada heesihiisii waan sii wada daayey kulli waan sii wada daayey hadda hees aan qaxootiga kolkii anagu qaxootiga saada marka waxay ka qaadayseen meel aanu de qaxootinahay oo jabnado ruwaad horta waxay ahayd xamaroo qurux badan iyo xamaroo duntay ilan meel ku gaadh maaha dawlad moogta iyo xamaroo dawlad cusub heshay oo soo noqotay marka eeskaas ayay in badan ay faaleeyeen oo ahaa yani marka hore iyo markaan cimrigay intaan jiray weli caawa ku horo ciradaa aan leeyahay caqiidada islaamka oo laysku caayamaan maqan cilmigii aqoon yahan dad dhanoo iscunayiyo carab dalab labuu dhalay imisay baduhu cunayaan soo celiyey meydkii imisaa curad hooyadii uu ka waayay caanaha imisaa cidla ciirsilada uu ku cunay dugaagii imisaan cudurka iyo gaajada wax ka caawiyaa jirin caloolkaanu wada jiibsaneen caanaha wadaagnahay haddaanu calanka doonayn ciiddana uu necab yahay kii diliba way cadow gaajaa carrawdo intaan doonan bay tiri aan ku cunaana ka hortay taariikhahan cajiibka ah miyaan lagu cabmiri karin ceebtuba ninkii garan bay dhitaa caqligana ilaah baad ku caabudaa colaad waxaa la yidhi curad kuma dhashee ka nool bay cuntaa marka ereyadaas unbaa laisku waa la keenayaa kanaa la waxaynayo horta ma og tahay in dadka wax yaqaanaa cadow isu yahay aad iyo aad jaamicigu jaamiciisa kale waa cadow qudaarreedu ma jecla caanaha ma jecla sheekha kale ma jecla gabyaa kale ma jecla haddaad aragta nin calaacalaya waa niman wax aqoon aad iyo aad sideedaba haddaad nin cabanayo oo waa layga eexday iyo waa lay xumeeyey aad maqasho waa qofaan wax aqoon waxaa weeye qofku hadduu wax yaqaano wixiisaas iska tirsanaya marka dee adigu waan maqmaqlay laakiin dee heesaha waan sii daayey malaha 2,000 qofna waxaan ugu dhigay 6 balaas ayadoo dhamaystiran ay wallahi odag horta waa runtiisu wax kasta waa ka hadlay laakiin suugaanta soomaaliyeed waa la qiimeyn jiray hadda waxaba barnaamij la soo kordhayay hadda waxaa soo korortay xaflad kasta oo la qabanhayo barnaamij leeyahay inta cuntada la cunayo fanaaniintu ha haysto inta cuntada la cunayo wax soo labaad iyo markii saddexaad waxay tahay maqlaya ka qayb galay ana cunta cunaya wixii aan sheegayna la dhageysanayo shownimo banaanada ka yimid oo qurbaha meelaha ka yimid waxay arki jireen dad hoteelka u qoran oo inta cuntada la cunayo wax soo garaaca sidii kulliin marka waxa barnaamijkaas waa barnaamij cajiib ah laba hameen iyo saddex bis waxay tahay maalin baa ka qayb galay hameenka hore waa diiday waxa ay ma dhici karto dad badan oo madaxa oo iga sareeyay iyo waxay la mid ah
waa wada diideen markii dambe ilaahay amarkiis waxa la yiri inta fanaaniintu barnaamijka dhigayso cuntada hala joojiyo nimankii cuntada soo karinayay hoteelka ka soo karay baa la ordahay cuntadii waxaana la qabaa oo la isku raacsan yahay inta la cuntada la cunayo ha wadeen barnaamijka oo hanno heesaan markii cuntada dhamaatana lagu kala tagay meesha ayaga yaa wadada yaa ma kala jecel ayaga yaa kala jecel marka murtidii waxay bay noqonaysaa in ama la bedelo ama la iska daayo arrintaas marka maxaa ka orad barnaamij cusub wey waana wax lagu qiimo dilayo fanka iyo abwaanada iyo murtida Soomaaliyeed lagu qiimo dilayo wax la yeeli karana ma wax dhaanta iyadoo la iska dhaaf ayadoo la iska daayo sababta hore waxay u arkaan hoteelada dad u qoran oo music garaaca inta weeriyay kiibay munamoodayaan oo hotel uma qorin abwaano qaran baan nahay murti Soomaaliyeed baan wadnaa waana wadnaa tusaale wadnaa waxbaan dadka tusayna marka cuntada cunaya ay hees abwaano Soomaaliyeed baa tiim sanadka cusub Soomaaliya maxaa u rajaynaysan sanadka cusub abwaanka ka koobanayay bisha horta waxa la yiraahdaa December madad bay yiraahdaa islaamku safar bayda kullu Soomaaliya adu sanadka cusub hadda hadaan galno waqti raaca ah kala qaadan sanadka cusub hadii la galo oo December dhamaanayso waxaan rajaynayaa wallahi anigu hadda waxaan rajaynayaa ma sheegay هذا ما وكان حاجتين لا ما كرتين أقول ما أنا يا سنقف أيام صبروا رسولك ورد المسامة 7 تجي سماتها ساتر وضع الليل سون قشديسي قال لي صلاة أنتوا كعيسق دينه أنتوا كذي سال الليل سبحان يا الله يجري صعب هذا وهو صدق الدنيا يجري صحبة عنها وحسوروا ما هي سنة كان السيب ويجي الله يوم السبب به الله يوم السبب به waxaan ugu rajaynayaa inuu noqonayo mid fiican isaadaasha hadda filimkan aan sameynayay waxaan dad kolkaad ka baxaysaan insha Allah ilaahu na garansi astaghfirullah kaga wada baxa anigu waxaan aaminsanahay sanadkan cusub iyo dawladdan cusub iyo ra'yigeena cusub iyo habeenba waqti la soo maraayay iyo waqtigu hadda maanta in badan aynu dawladahayn dawladuna ay markii sanadkii hore ahayd inay cusbayd sanadkan labaad waxaan aanu badaljeeyaa isbedel weyn inuu imanaya insha Allah ilaahi insha Allah ilaahi ka dhigo Soomaalida ajnabiga ka harto isku tasho ayada Soomaalida waa isku tasho haddii la isku tashan gaajo kasta iyo wax kasta hal mar haddii la isku tashan Soomaalida isku tasho ayada isku tashadeen dhulkooda ha qoteen beertooda ha waxay badooda ha naga badan oo shay macaan cuna malayga بدنا ويعني هذا وقت داوديال قدام برنامج كيجي سنة كعصب يا أبوان سنجب يا أبوان سجال أنت أيام كسر قابين يا وان دريمي كرانا تعلان لهذين مرتب بدن يا تاريخ بدن يا نور بدن يا وقت بدن إن تكتعلان لهذين برنامج كان يدقوا فاقنا لكن أبوان سنجب وعن أورتين يا إنه مجرد جريدون برنامج كحصوص ثقافك أو برنامج عن نقافك ويهيس وقت جيس كلاشة كيسنا إن بدنا عنو بالله منا ما أنت برنامج كان وحنا كوبين يا سنة برنامج كانوا نقلق جريدون أبوان سؤال سكوا برنامج بدنا يو نقلق جريد تي في كالسن وقوم هذا إن يا ما أنت برنامج كان يو نقلق جري فرصبضة يو لنا عكام رضا زكريا إسماعيل نوها يان وقوم هذا إن يا دب أنت نوكل مدنا برنامج كانوا كلا وعيد الله يا هاي سنة وناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.